si loo helo saxaafi leh karti aqoon uu dalka horumarkiisa qayb uga qaato ayaa maanta dib loo howlgeliyey kuliyadii cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ku dhawaad muddo 30 sano kadib taasoo ay iska kaashadeen dib u howlgelinteeda wasaaradda warfaafinta waxbarashada iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo gacan ka helaysa jaamacad ku taala wadanka Finland munaasabada dib loogu furayay dib u howlgelinta kuliyadda cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda oo lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maamulka sare ee jaamacadda ummadda guddiga warfaafinta ee golaha shacabka xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSAJ Maxamed Ibraahim Macalimow Maxamed Axmed Jimcaale gudoomiyaha jaamacadda ummadda oo ka hadlay munaasabada ayaa xusay in dib u howlgelinta kuliyadan ay qayb ka qaadanayso soo saaridda wariyaal leh tayo aqooneed wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda ummadda intuba waxay ku dadaalayaan in dad akhlaaq leh Soomaaliga qani ka ah Soomaaligu waad ogtihiin waxa uu qaybsamaa mid xaafadaha looga hadlo Carabiga saasa Ingiriiska saasa iyo mid muxuu ahaatay leeyraado standard hadda suxufiyiinta Soomaalidu waxay u badiyeen inay luqadii guriyaha looga hadlayo inay saxaafadda uga hadlaan xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareey wasiirka hore wasaaradda warfaafinta iyo Cabduqaadir Maxamed Xuseen Jahweyn oo isna ah wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta oo si wada jir uga hadlay munaasabada ayaa arin lagu farxo ku tilmaamay dib u howlgelinta kuliyadda warbaahinta marka maadaama dalkeenu maanta sidaan sheegay leeyahay warbaahin ballaaran warbaahintuna tahay macalinka bulshada mas'uuliyad weyn ay u baahan tahay furista kuliyadan waa xilli munaasib oo runtii aad iyo aad u habboon howl kastoo la qabanayo maanta oo u baahan cilmi haddaan maanta dah dib u furayno kuliyadeena fursad ay noo tahay waa aqbaliyeenaya oo bogaadinaya gudoomiyaha guddiga warfaafinta ee golaha shacabka xildhibaan Qaalid Macow ayaa sheegay in golaha shacabka uu horyaallay xeerka warbaahinta oo dib u eegis lagu sameeyay ka oo sare u qaadaya xirfadda wariyaasha Soomaaliyeed noqon doona sharcigii hagi lahaa marka saxaafigaas asiga ah mas'uuliyadda saaran hadda maxay tahay way asiga badbaadada u baahan yahay anshax u baahan yahay asduub u baahan yahay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa sheegay in kuliyadan ay muhiim u tahay dalka waxaan rajaynayaa kuliyadda oo gudoomiyaha maanta inala jooga oo aan rabno maaragtay halkan aynu ku daahfurayno wasaaradda warfaafinta waxaan rajaynayaa inay maaragtay kuliyadaasi ay wax badan ku soo kordhin doonto marka waxaan rajaynayaa in dhalinyartu ay ka faa'iideysato kuliyadaasina jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay ugu tala gashay si ay warbaahintu kor u qaado maadaama ay warbaahintu tahay indhaha iyo aragtida ummadda Soomaaliyeed mar walba wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow ayaa xusay in kuliyadda cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda ay muhiim u tahay wariyaasha Soomaaliyeed si loo helo wariyaal leh aqoon iyo karti مدن رئيس الوزراء والله سعتها استراتيجية وrbaahinta qaranka Soomaaliyeed ee 5 sano waxyaalaha ugu muhiimsan ay nooga mid tahay kobcinta tayada iyo xirfadda saxafiga Soomaaliyeed bacdama warbaahintu ay tahay door ama ay tahay runtii hay'adaha dawladda iyo hay'adaha ugu muhiimsan isla markaana la rabo in dawladdiina la xisaabtanto bulshadii wacyi geliso isla markaana ay gudbiso fariimaha iyo dhaqanka iyo dalka iyo sida amnigu soo raanaanay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayro oo ugu dambeyntii ka hadlay munaasabada lagu furayay kuliyadda cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda ayaa tilmaamay in ardayda nasiibka u yeelatay kuliyadan ay qayb ka noqon doonaan taariikhda waxbarasho ee dalka taasina ay horseedayso in saxafiga waxbarto uu qayb ka qaato horumarka dalka oo meel iska dhigo wax kasta oo lagu dhaawacayo sharafta iyo karaamada dadka iyo dalka Soomaaliyeed ardayda fursad u heli doonta hadii Ilaahay yiraahdo inay kuliyadan ka qayb qaataan waxaan sheegayaa waxaad fursad u heleysaan inaad qayb ka noqotaan taariikhda ummadda Soomaaliyeed inaad qortaan taariikh cusub oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay in laga shaqeeyo saxaafadda
macnaheedu waxay tahay in qayb laga qaato dib u dhiska dalka Soomaaliyeed in dalka sida looga warbixinayo ay caafimaad qabto in qof walba oo computer hor fariisto oo dalkiisa iyo dadkiisa wax ka qoraayo waxa ugu horeeyo ay ka fikiraan ama raadiyo hor fadhiya ama TV hor fadhiya waxa ugu horeeyo dalkooda ay ka sheegayaan waa inay noqoto waxaan dalkaada ma u wanaagsan yihiin xataa hadday xun tahay dalka ma hagaajinaysa waxaan run ma tahay oo ummadda Soomaaliyeed run ma u sheegaysa waxaan ma tahay wax xaqiiqa oo Ilaahay ugu dhawaanaysid in runta sheegtid haddii laakiin ay ahaato in qof waliba oo naga mid ah u dalkeena wax ka sheego aan wanaagsanayn waa inaad ogaataa inaad qayb ka tahay burburinta ummadda Soomaaliyeed kulliyadda cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu soo kordhiyay jaamacadda sanadkii 1970kii waxaana ka soo baxay wariyaal badan oo magac ku leh Soomaaliya qaarkoodna xilligan ay ka howlgalaan warbaahin caalami ah. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.